qofka jaamacadda ka soo baxay okay waxaan bartay buu ku leeyahay project management baan bartay ama waxaan kala bartay laakiin ma arkaysi wax uu qaban karay dhalinyaraan garanaya Allah ta'ala computer science baan soo baranay kama soo baranay way koornayaan okay WordPress website soo samee maxaad soo sameysay maxaad soo waxaysa dadkan adarkiisa Allah ta'ala xagga sare jooga xilli baa jirta iyagu bottonka ay joogeen maanta Cabdi Jaliil sanad ka hor buu ayuu YouTube bilaabay maanta almost 9,800 baa ku xidhan waxaas waxa keenay ciyaar baa waa loogahay the amount of dedication iyo hard work iyo soo jeed iyo shaqo iyo focus ee sameynaysid iyo hangarka kugu jira ciyaar ma jaamacadka wadankeena qaar walaalahay baa jira Allah musta'an ka soo baxay oo jira oo maybe IT bartay waliba especially jaamacadka Soomaaliya waxay dhalinyaradu bartaan waa wax aad Allah musta'an u yar ama aqoonta helaan way qofkii waxaad arkaysaa wax qornay computer science baan dhigtaa ama waxaan baan dhigtaa laakiin hanu shaqo qaban karin muhiimadu waxa ku sheegay waxa weeyaan maxaad qabatay maxaad samaysay marka jaamacadka waxaan leeyahay dhalinyarada isku haleyn jaamacad maanta meel kaaga ma saarayso maybe muuqaal baan ka fikirayaan aan soo waday challenge-yada Allah musta'an dhalinyaradu ay ka wajahan daraasad baan arkayay waa maxay qofka inoo soo baxay jaamacadka ka soo bax maybe inuu Cabdixakiin fursad u helay inuu wadanka dibadiisa wax ku soo barto oo wax barasho tayo leh uu helo maybe adoo ina xagan Kenya wax ku baratay oo Allah musta'an wax barasho tayo leh heshay laakiin anoo ka hadlaya dhalinyarada Soomaaliya ku kortay Soomaaliya aan ba ku koray intan hadda 7 sano Belgium ku nool mooyaan inaan self study iyo wax barayay mooyaan marka waxaan leeyahay dhalinyaradu wax barashadu maanta way taala hal xirfado kaliya aad u baahan tahay inaad baratid xirfadaas oo learn how to learn marka caqabada jaamacadku waa dood weyn oo hortaala bulshada wadankeena taala qofku jaamacadda muxuu ku soo baranaya qofka jaamacadda ka soo baxay okay waxaan bartay buu ku leeyahay project management baan bartay ama waxaan kala bartay laakiin ma arkaysi wax uu qaban karay waxu qaban karay dhalinyaraan garanaya Allah ta'ala computer science baan soo baranay kama soo baranay way koornayaan okay WordPress website soo samee maxaad soo sameysay maxaad soo waxaysa markaan arko Allah ta'ala iyo ku yaro kale waxaad arkaysaa maybe graphic design to noqday the best of the best noqday oo thumbnail suwaaliya sameynay oo online kala baxay $500 ilaa $1,000 intuu shan qof u kala sameeyay Allah ta'ala ilaa $1,000 kala baxay bil kasta kii jaamacadda soo bartay waxa ma hayo midna thumbnail qof u sameeyo ayuu kala baxaya $1,000 lacag gaaraysa 10 qof uu thumbnail u sameynaya midba video editing baranaya video editing-kaas door buu sameynaya and he's xirfadiisa Allah ta'ala excellence buu ku yahay marka jaamacadku taas bay wajahayaan sayidii waxa lagu baranayo ma aha wax maanta adduunkan ay nool lahay iska daa teenay ee tii galbeedka ayaa dib dhac waxyaaban oo lahaa waxna waa wax Allah musta'an hard skills waxna waa soft skills waa qofku markuu yar yahay oo xirfado soo barta soft skills kan oo lahaa maalin dhow daraasad baan arkay lagu sameeyay ganacsato entrepreneurs cusub oo Nigeria jooga badna wax lagu train gareeyay xirfadaha Allah musta'an sida discipline-ka courage-ka leadership-ka Allah musta'an time management-ka team working-ka ayaa team lagu train gareeyay teamna wax lagu train gareeyay xirfadaha marketing-ka selling-ka waxyaabaha la xiriira Allah musta'an business ku baahan yahay ayaa lagu train gareeyay sanadka bacdi ba daraasadii la daba galay ganacsiga isku mar bay ganacsiga wada bilaabeen waxa ay 100% ka fiicnaadeen oo ay ka wanaagsanaadeen kuwii xirfadahan lagu train gareeyay cognitive skills-ka lagu train gareeyay ayaa ka Allah musta'an ka fiicnaaday kuwii kale lagu train gareeyay xirfadaha kale business skills-ka lagu train gareeyay marka taas maxay aad muhiim u tahay dhalinyarada imika waxyaabaan ku arko focus ma hayaan oo maanta dhan TikTok bay ku maqayeen wax ma dul fadhii karayaan goal setting ma samaysan karayaan discipline ma samayn karayaan waayo waxan waa wax u baahan feejignaan waa wax u baahan inaad wixii kale online kaga dhacayo dhan ma yatiraadid waayo computer-kaaga hadda marka soo qaaday YouTube soo gashid YouTube intaas thumbnail baa ku soo baxayo oo clickbait lagu qaniinsiinay moogtahay aniga laftayga waan sameynaa waayo competition baa lagu jira marka YouTube xaga la yimaado intaas oo mawduuc baa soo baxaya intaas oo wax baa dhacay intaas oo wax baa ka socda garanaysa qofkii maanta dhan muuqaal buu daawanaya kama dhigna haduu muuqaal daawanayo inuu qofkaasi productive yahay kama dhigna inuu business dhisayo kama dhigna inuu xirfad sameynayo kama dhigna inuu wax waxaynayo laakiin xirfadahan oo laha qofka inuu yaraantiisana dadka qaar fursadaha u helaa jirta dadka qaarna Allah musta'an way ku waxaysan marka hunger qofka inuu hayo oo gaajo inuu hayso gaajadaas inuu discipline yeesho inuu courage yeesho inuu honest noqdo oo Allah musta'an qof daacada way honestigu 90% dadku intooda badan waa daacad laakiin waxayna daacad ka ahayn waxaan what it takes inay nahayn ciyaar yeeris malaha inaad arkayso
أنا قف كان الذي بيطلع مسعان أدرك يسيد أنت تكأرك يسيد هذا يرتاح واسيد آيس بيرك وكله أما بور برافيت كله تذكر هذا كيس الله مسعان حاجة سريع جوجا حلي بتشتى يجوا بطن كي جوجين ما أنت عبد الجليل سنة كاربو أيو يوتيوب بلا ما أنت almost سراشكم سيدتكم بقول حدا وحاس واحد كله عيار بقى ولو جاي the amount of dedication hard work يسويت يشقق يفوكس الثمين سيدي هنجر كوجرا عيار بقى ما كان حنقول لها إنه دنيرادو برتان more than الله مسعان وحيابان كتيرة إنه قفك برتو discipline كا إنه برتو critical thinking كا إنه برتو accountability كسيلو قادا accountability كومت ما دا الله مستعان وح عايرس كي مدمه ما أنت أوكي عبد الجليل وكلا داركتي حرفات بالله ده هاي لأن يدو حربان دق دق العجوز سميان عبد الجليل وكلا داركتي يوتيوب كيسا وحبه هي إديتر وحبه هي تمنى سمي وحبه هي كان كلا أوكي سيان وحقو عاون كريا قاضينا حبتك برانسا قفكينا الله مستعان والله شقينسا marka accountability wax ku xiran ma inaan maanta fiidiyoyada qaadan soo edit gareeyo soo sameeyo oo ku soo diro marka accountability inuu barto qof sidoo qaadi lahaa intuu yar yahay accountability-guna waa fragile waa wax jabi karaya oo si fudud ku jabi karaya laakiin hadduu uu qofku accountability uu qaadin meel fog ma gaari karay marka waxaan oran lahaa xirfadaha uu u baahan yahay inuu barto waa xirfadahaas cognitive skills discipline ku jiro courage ku jiro uu ku jiro Allah musta'an goal setting ku jiro teamwork ku jiro honesty ku jiro الله مستعان وكتيرو صدق نولوجيس ونظام لا accountability وكتيرو هادو حيابها برتو وحكى لهم اسكفض إنني حرفة كلنا نقول لها هذا الإرادة إن بريت لين هاو تلين الدنيا ذو حكست جوه بكون عاي maybe أنا شوبه في بندت كبرى maybe dropshipping ما كتير كتير هذا الله مستعان دوحي وكوري ساي كوريما صعدة شوبه في بشي هروح ما أنت كوجرني إنه سبدلية معقول لكن لين هاو تلين بالباهنته وحي بسنة كي هوري كتير ما أنت متشر AI بصوب aqoontu waagi hore waxa loo oran jiray 5 sano hal mar buu goobo ku dhaca laakiin samaanta every single day hadii aanad update ahayn hadii aan industry-ga wax ka akhriyin hadii aanad xirfadaaga horumarinayn challenge bay kugu noqonaysaa inuu qofka dhalinyarada koro hadii online noqoto YouTube is the best way qofku xirfado ku bartaa discipline ku bartaa wuxuu ku baranayaa mid kale YouTube dadku Soomaalidu YouTube-ka AdSense-ka waxay ka helaan unbay Allah musta'an unbay YouTube u yaqaanaan laakiin YouTube waa ecosystem YouTube waa personal media YouTube shalayban muuqaal sameynayaan lahaa Allah musta'an qofku si uu meel u gaadho wuxuu u baahan yahay leverage inuu haysto marka 100,000 qof haday ugu xiran yihiin waxay ka dhigantay halka video soo post gareysid maybe 10,000 qof daawato ama 50,000 qof ama 100,000 qof ina 100,000 wax aad ka iibin karaysid marka niishashku way kala duwan yihiin niishashku qofku ku jiro laakiin qofku inuu haysto personal brand ama inuu haysto YouTube inuu haysto that's the best thing aan nolosheeda sameeyay oran karaya qof kastoo dhalinyarada aan ku dhiirigelinayo inuu sameeyo it's not easy Allah musta'an YouTube way adag tahay waatan markii dhaweyd ka hadlaynay lahayn 200,000 qof adduunka dhanka haysta 100,000 ka gaaray 50 milyan oo channel way furiin 0.01 milyan ayaa inta ka gaaray marka way adag tahay discipline ku baraya focus ku baraya wax badan ku baraya inaad dhalinyaro badan wax soo gudbiyo way jirtaa oo attention iyo views iyo waxyaabaha wax ka raadiya waxyaabahaasna oo niga degaya marka waxaad bilaabaysaan inaad iska ilaalisaan inaad meel fiican ka gashid waa sumcadaadii waxan waa mustaqbalkaagii waxan waa way adag tahay Allah musta'an hadii aad wax wanaagsan ka hadlisina attention heshid laakiin as long aad rabtid inaad wax aad qabanatid aad rabtid qofka ugu fiican way Abdi Jaliil ba hada tusaale kuwa marka as long aad hunger ka haysid as long aad videogaaga 500 hada wato 200 qof hada wato 100 qof laakiin aad leedahay waan ogahay meeshaan u socdo aad dhigaysid wax fiican ba sameynaysaa podcast content creation ka qayb kamid weeyaan waa media qayb kamid oo YouTube-ka dhinaca ka soo galaysaa content-ka caadiga dhinaca ka soo gali kartaa long form bay noqon kartaa qasab maaha marka instead aad u noqon lahayd imika tan aad sameeyay anagu hadda markaan muuqaal diyaarinayno waa inaad fadhiisataa minimum 3 hours baad wax qoraysaa oo mawduucan diyaarinaysaa oo rogrogaysaa oo yaa wax ka soo diyaariyay yaa ka soo hadlay sidoo ugu hadli karaysaa sidoo u soo gudbin karaysaa laakiin podcast oo kale waa tan imika aan fadhino waan fadhiisano waan sii daynuu ma gutay waa sheeko caadi marka kaaga baahna inaad waqti badan aad soo gelisid mawduuca oo soo diyaarisid qofkii waa soo spotlight ka keenaysaa xagaad markan kale aad spotlight ka noqonaysid tahay Allah musta'an aad adiga iskeentid tan kale waxaad isticmaalaysaa dadkii kale Allah musta'an cidii attention ka haysay ayaad isticmaalaysaa marka personal brand way ku sameyn kartaa podcast-ku waxa ugu weyn ee Allah musta'an qofku sameesto waa uniquenimadiisa productize yourself nin nafal la yiraahdo wuxuu yiraahdaa productize yourself inaad naftaada productize gareysid is the highest thing
waxaan kaloo dhan waxay iska noqonayaan allah mustacaan marka podcastkuna waa fursad ka mid ah uu qofku spotlight-ka uu ku samayn karo wallahi Airbnb is a great place uu qofku income ka samayn karayo waa meel Airbnb waxa weeyaan waa gurigaagii ayaad kareynaysaa ama intaad guri kareysatid imika dhalinyar baa jirta inaan saaxiib nahay baa jira guryuu leeyahay allah mustacaan application-kan anagu sameyn hadda like Airbnb buu noqon doonaa oo sidan u wadna allah mustacaan ama aan develop gareynin waa like Airbnb inkastoo kaadkaanaya allah mustacaan platformyada kale iyo uu baahan yahay time iyo focus iyo wax badan u baahanayo laakiin Airbnb waxa jirta dhalinyaro malaayiin ka sameeya adduunka jooga gurigaad kareysanaysaa gurigaad habeynaysaa deeta allah mustacaan qolad u qabanaysaa u waxaynaysaa imika London oo kale gurigan podcastkii hore ku dhex qaban Airbnb waa maybe £2,000 mise $2,000 inay laga qaadeen hal bil bay ahayd qof yarkii guriga lahaa saaxiib baan hayna allah mustacaan yarkaasi wuxuu yidhi markaan guriga dhisayay kama fikirayn buu yidhi allah mustacaan inaan sameeyo Airbnb ama tan sameeyo kama fikirayn buu yidhi laakiin markaan sameeyay buu yidhi lacagtiisa arkay wow buu yidhi aniga keligay anoo malaha 20 cisho la joogay ayuu lacag $1,500 iga qaatay marka magaalooyinka waaweyn fursad bay ka noqon kartaa dad baa jira hadda Nairobi ka sameeya Soomaaliya oo kale fursadaas ay ka banaan tahay meel kasta oo allah mustacaan qof kasta adduunka joogo waa meel uu fursad ka sameyn karayo laakiin dropshipping waxa weeyaan waa physical product caadiya oo China yaala ayaa allah mustacaan China iyo waxa jirta wax la yiraahdo e-bucket country oo China ilaa 20 wadan baa isugu jira marka China iyo wadamadaas waxay saxiixdeen in allah mustacaan shipping jaban la sugu diri karo si shipping jaban la sugu gaarsiin karay deeta productyadii China yaalay ee warshaduhu ay sameynayeen ee allah mustacaan jabna ayaa si fudud in loo soo diro markii AliExpress la sameeyay ayay heshiiska la galeen wadamadaas 12 wadan oo Europe ka mid ah qaar Middle East ka mid ah qaar Europe ka mid ah North America ka mid ah Mexico ku jiraan iyo Canada iyo Mareykan markaas alaabtii si fudud bay ku gaaraysaa qofkii markaas instead uu alaab adigu aad maanta lahayd inta soo iibsatid aad gurigaaga soo dhigan lahayd alaabtii aad iibin lahayd waxaad iibinaysaa alaab xaga taal marka waa product-giiba taskareynaysaa teknolojiyadu taas bay ku siinaysaa xaggii aad markii hore ka ahayd product-ga inaad soo samaysid aad suuqa ku taskareysid waxaagii waxaad ku taskareynaysaa product-gaas markaas fursadaas buu ku siinaya adigu ma qabanaysid alaabtii oo supplier-kiiba toos ugu daray qofkii ad waxaad dhisaysaa waa inaad creative think la timaadaa hadday noqoto content-kii la create gareynayay hadday noqoto website-kii aad sameynaysay hadday noqoto product-kii aad soo helaysay hadday noqoto allah mustacaan tii aad sameynaysay marka business model-ka saas buu shaqeeyaa way jiraan allah mustacaan waa business model the best business model uu qofku wax badan ku baran karayo qofka hadduu maanta content creation kaliya ta baranayo waa inuu content kaliya ta bartaa laakiin dropshipping waa wixii oo dhan wada socda copyright-kaad baranaysaa content-kaad baranaysaa product research-kaad baranaysaa waxaad baranaysaa sida store loo sameeyaad baranaysaa aan isaga keligiiba allah mustacaan wax badan ku furay waxaan oran karaa xirfadii ugu fiicneed bartay inta noloshayda aan noolaa waana business model uu qofku wax kaga sameyn karo wal dhaxdeedan meel gabilay allah mustacaan event aan ugu qabtay baan event-kaas waxaan kaga hadlayaa kamid ahaa uma baahnid allah mustacaan inaad fursadaha dibadda ka raadis laakiin inaad fursadaha gudaha ka raadis maanta qofku hadduu waqti haysto internet haysto uu naftiisana ka adag yahay waxba yaraatay istaajinaya muulaynay laakiin sidee baad kan uga adkaataa weyn kan nafarka iyo waqtiga badan ka qaadanaya sidee uga adkaan karaysa intan isleeyahay inta